niil daadka ayaa qaadi doona khaliijka carabtuna waxa uu noqon doonaa dab iyo holac dubaay ma noqonayso meel ku habboon nolosha baqdaadna waxa ay u dhiman doontaa oonkeeda ama harraadkeeda dagaalla ku saabsan biyaha ayaana sugaya joogitaankaaga qof ahaaneed ee adduunkana waxa u dhammayn doona musiibooyin waaweyn sannado gudahood arrinta cimilada oo aan muhiimad gaar ahaaneed la siin sidee ugu dhammayn doontaa adduunkan aad taqaan ilbaxnimada bini'aadamku waxa ay ka bilaabatay gobolkeennan carbeed si gaar ah meel loo yaqaan hilaal alqasiib halkan ayuu joogay bini'aadamku halkan ayuuna ku hindisay qoraalka isla halkan ayayna ka soo muuqdaan astaamaha dhammaadka adduunku marka aan ka fiirinno dhinaca hawada sare waxa aan arki doonnaa walax musiibo weyn ah dhibcaha madmadow ee raranka ah waa deegaanno ama gobollo u dhow inay lamadegaan noqdaan wakaaladda naasa ee maamulka iyo maaraynta hawada sare ee maraykanka ayaa sheegtay inay tahay hir ballaaran oo abaar ah taas oo ah tii ugu xumayd muddo 1,000 sano ah ee ka dhacda gobolka carabta balse marka laga eego ama laga fiiriyo dhulka musiibada waxa aan ku arki doonnaa indhaha oo keli ah hoosu dhaca qaybiyoodka webiyada dijla iyo furaad hirka abaarta ah ee ku dhuftay maroko islamarkaana sababay dibudhac dhaqaale oo gaaray 1.5 boqolkiiba iyo ku tilmaamidda urdun inay tahay waddanka afaraad ee ugu abaarta badan adduunka marka la eego tuunis maroko aljeriya suuriya liibiya falastiin imaaraadka baxrayn kuweyt iyo qatar dhammaantood waxa ay geli doonaan gobolka biyola'aanta darani ka jirto muddo 13 sano gudahood ah waa ogaannay wax ka mida waxa dhacaya balse sidee u dhaceen ma maqashay korukaca heerkulka dhulka waa kulayl aan lahayn wax loo dhigo muddo 800,000 oo sano ah cilmi ahaan waxa loo yaqaan xaraarada ama kulaylka caalamka arrintu si fudud marka loo dhigo waa sidan soo socota dhulku waxa uu nuugaa fallaaraha qorraxda ka dibna waxa uu ku sii daayaa dhinaca dahaarka ama daboolka atmosfeerka marka ay xaaladdu tahay sida caadiga ah waxa baxa kulaylka dheeriga ah sidii uu u soo galay ha yeeshee xaalka aan maanta ku sugannahay kulaylka dheeriga ah waxa uu ku xidhan yahay dhulka sababtuna waa waxa loo yaqaanno saamaynta jihaj gaaska kaarbon laba ogsaydhka ayaa u diidaya kulaylka inuu baxo balse yaa soo daaya kaarbon laba ogsayd waa ka faa'iidaystaha la wada yaqaan dhammaan waa annaga bini'aadamka ah adeegsigeenna shidaalka laga sameeya waxyaabaha dabiiciga ah ama fossil fuel oo aan ku isticmaalno baabuurta warshadaha iyo dhaliyayaasha awoodda korontada ama layrka ayaan ku sii daynaa hawada tiro badan oo aad u ballaaran oo ka mida shidaalkaas halkaas marka ay taagan tahay qofnaga mid ah ayaa isweyddiin kara oo maxaa iga galay diiridda ama kululaanshaha caalamiga ah wax mushkilada ma laha xitaa haddii heerkulka dhulku uu ka kor maro 35 oo uu gaaro 36.5 dhab ahaan waa dhibaato aad iyo aad u weyn xitaa waxa ay gaaraysaa dhibaatadaasi koobka biyaha ah ee aad cabayso kuma quseeyo oo wax qiimo ahna kuma laha balse isaga ayaa ku dilaya waxa uuba dili doonaa qiyaastii wax walba haddii aan safar gaaban ugu baxno dhinaca cirka mar kale halkan bartamaha daruurahan kala fidhiidhsan ayay ku taallaa warshadda soo saarta biyaha ugu macaan adduunka uumibaxa biyuhu waxa uu ka yimaadaa badaha iyo webiyada taasna waxa sameeya kulaylka qorraxda oo qaabeeya daruuro isla falgala ilaa ay dhaliyaan dhimbilo ka dibna waxa dhasha roobka waxa ka muhiimsan roobka waa barafka oo aan la'aantiis aanay webiyadu u socon karin sida aad taqaan maanta dhalaalka barafka ee ka yimaada figta sare ee buuraha waa waxa ku caawiya webiyada dijla iyo furaad inay biyo helaan halkan ayayna taal musiibadu diirrimaadka adduunku waxa uu barafka ka hor istaagayaa inay dhulka u soo dhacdo tiradii lagu yiqiin taas oo ka imaanaysa xagga sare ee buuraha tuuris ee turkiga taasina waxa ay ka dhigan tahay in biyuhu ku yaraanayaan webiga dijla islamarkaana ay abaarsanayaan laamihiisu الشذوذ المناخي xayirnaanta kulaylku ma sababayo oo keli ah abaar waxa uuse kordhinayaa xaaladda cimilada adag ee dhif iyo naadirka ah
sida hirarka kulaylka ah ee ku dhuftay camaan iyo aljeeriya sannadkii imaaraadka iyo sacuudigana ka dhacay sannadkii cilmi baarista ayaa sheegaysa in heerkulka gaaray 50 digrii uu noqon doono lambar caadi ah kaas oo aan inta badan ku aragno maalmaha xagaaga qarnigan waxaa la filayaa in cimiladu sii kululaato sannad walbana ka sii diiranaato kii ka horreeyey waxa aanan filaynaa inay dhacaan isbeddello dhif iyo naadir ah oo ku saabsan diirrimaadkan waana waxa xoojinaya dhinaca korukaca heerkulka si aad u badan una adag المصيبة الأخرى لا تقل كارثية magaalooyinkeenna lagana yaaba waddamadeenna waxa qaadi doona daadad waaweyn waana sida ay tahay adduunka waxaa jira qaarado dhammaantood ka dhigan ama u taagan baraf weliba tirooyin aad u ballaaran dhalaalka degdegga ah ee barafkaasi waxa uu sababayaa korarka saamiga biyaha badaha iyo harooyinka taasina waa sababta ku qaaday aqoon-yahanku inuu sii odoroso in dalta oo ka tirsan masar uu daadka biyaha cusbadu qaadi doono iyaga oo gaari doona gundhan 20 ilaa 40 kilomitir magaalada iskandariya oo dhanna ay maanshoobi doonto horraanta dhammaadka qarnigan ليست مصر فقط ma aha masar oo keli ah waxaa jira magaalooyin carbeed oo halis ugu jira in daadku qaada sida triboli iyo caasimadda tuunis kuweyt cadan dubaay dooxa iyo baqhdaad الحروب والقلاقل sidee haddaba suurtagal u tahay in isbeddelka cimiladu u saameeyo mustaqbalka caalamka carabta una qaabeeyo hardanka u dhexeeya iyo xuduudaha dawladihiisa sidee haddaba isbeddelkaasi u horseedi doonaa dagaallo sokeeye uguna gogol xaaraya hardan iyo iska horimaad cusub oo ka dhaca gobolka waa sax haddii aan dhahno mar walba oo barwaaqada iyo baraaruhu kordhaan waxaa yadhaada dagaallada waxaana suurtagal ah in sida kale ay tahay sax khilaafkii ku saabsanaa biyaha ee dhacay kontameeyadii waxa uu ahaa mid ka mida waxyaabihii dhaliyey inuu qarxo dagaalkii 6da maalin ee sannadkii 1967 markii israa'iil isku dayday inay leexiso biyaha webiga urdun iyada oo adeegsanaysa tuubooyin biyaha ka soo qaadaya harada dabariya islamarkaana geynaya lamadegaanka naqab sidaas oo kale waxaa la yaqaan in hardanka taariikhiga ah ee u dhexeeya turkiga iyo suuriya ay sababtiisu tahay biyaha furaad sidoo kalena sida ay etoobiya ula dhaqmayso arrinka biyaha niilka waxaa xadaynaya dabeecadda iyo qaabdhismeedka hardanka ay kula jirto masar cimilada sii xumaanaysaa ma sababayso hardan dhex mara dawladaha oo keli ah balse waxa ay u tallaabaysaa in waddammada dhexdooda uu hardan ka dhaco marka ay tusaale ahaan abaartu ku dhufato delta oo masar ah islamarkaana ay ciiddu cusbowdo waxa dhacaya dagaagga ama dhalandhoolka cimilada dadku waxa ay u hayaamayaan xarumaha magaalooyinka iyaga oo raadinaya hab ay ku helaan wax ay cunaan oo aan ahayn beeraha waxaa dhici doona cidhiiri ama saxmad dhinaca deegaanka ah baagamuuddo ama shaqola'aan iyo sabool taasina waxa ay markeeda horseedi doontaa dagaallo sokeeye waxaana kordhaya qiyaasta dembiyada daarfuur oo suudaan ah ayaa ah tusaalaha ugu fiican sida uu shaaciyey barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay UNEP waxaa caddaatay in biyola'aanta iyo saxarowga ciiddu ay sabab u ahaayeen qarxidda hardankii dhiigga badani ku daatay ee daarfuur marka la eego suuriyana dhowr cilmi baaris ayaa muujisay in abaartii dhacday 4 sanno ka hor dagaalka ay xidhiir la lahayd qarxidda dagaalka cimiladu waxa ay go'aan ka gaaraysaa aayaha dawladaheenna carbeed iyo aayaha wax ku dhow 3 bilyan oo qof oo ku nool dawladaha dhaca inta u dhaxaysa labada trobik sida uu ku sheegay Christiana Parenti buuggiisa Tropic of Chaos oo uu uga hadlay isbeddelka cimilada iyo sida juqraafiga cusub u horseedi doono fawdo iyo jahawareer ha yeeshee sidaas oo ay tahay arrinta isbeddelka cimiladu aad ayay uga fog tahay hortubinta carbeed marka laga reebo in yar la jirka iyo taageerada qadarka awgeedna ameerika waa dawladda ugu weyn ee sababaysa musiibada ha yeeshee waxa ay ka baxday heshiiskii cimilada ee baariis maxay uga bixi weysay saamaynta iyo raadka burburintu waxa uu soo mari doonaa waddamadeenna marka hore iyada oo kaalinta aan ku leennahay diirrimaadka adduunku ay aad u yar tahay kaalintaasi waxa ay gaaraysaa oo keli ah 5%
arrinkaasina marka si fudud loo dhigo caddaaladda lug kuma laha. haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid.